بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواو channelkani ka faa'iida aqoon fadlan maanta waxaan ku baranaynaa sida loo samaysto Bible-ka wuxuu yahay waxa weeyaan bangi elektrooniga oo adduunka oo dhan isku diraan oo cid walba isticmaasho si safe oo aan wax lacagtaada laga dhacin meel kasta oo joogtid waad kala bixi kartaa cid kasta oo joogtid waad u diri kartaa qof kasta oo Bible-lena waad ugu diri kartaa si fudud marka waxaan doonaynaa maanta inaan barano siiba qofka jooga Soomaaliya sidoo uu samaysan karaa Bible beriyo hore lagama ogolaan oo lagama diiwaan gashan karin qofka jooga Soomaaliya Bible kama diiwaan gashan karin laakiin imika uu ka shaqeynayaa Bible oo waa diiwaan gashan karaysaa marka sideed u samaysanaysaa maanta casharkeenu ku saabsan yahay Bible accounts marka doonaysid Bible inaad soo qortid Google-aaga soo furanaysaa markaad Google-aaga soo qortid waxaad ku qoraysaa iyo Bible buu soo gaabiyay moogtay Bible qoraysaa Bible markaad tiraahdo qaybta sign up-ka ayaad ku dhufanaysaa search index-giisa marka soo search gareysatid marka Bible-ku wuxuu yahay ku sharaxaya Bible-ku waxa weeyaan waa electronic bangi oo ka caawinaya electronic iyo waxa soo dhaweeyaan marka bakaasa Bible la yiraahdaa Bible electronic waa America waxa laga leeyahay Mareykanka laga leeyahay macmiilka customer service-kiisa adeeg baahan toos wada garaaci kartaa kaas kala haraya waxaana la ninka aasaasan oo Palo Alto wala yiraahdaa waa California United States ku talahaanto Soomaaliya waana qayb kamid ah ama parent organizations waa company ka tirsan EB-da ku tirsan yahay oo milkiilaha EB-gaasna hoostaya CEO-giisuna waxa weeyaan Daniel Schulman balerada dhowr branch inuu ku leeyahay waxaana aasaasay dhowrkan baa aasaasay 1 2 3 4 5 6 baa aasaasay Elon Peter Yuban iyo Max iyo Howland ayaa aasaasay Bible-ka waxaana la aasaasay oo la aasaasay 1998 baa la aasaasay company weyn waxaana wuxuu shaqeeyaa hab online ah oo aad ku diraysid lacagtaada wax ma jirto serial number iyo code iyo hastis waxa weeyaan Gmail-kaaga iftaysa Gmail-kaaga soo sheegaysa Gmail-kaaga soo qabsanay Gmail-kaaga ku soo diray lacagta Gmail account-kaaga marka sidaad u samaysan karaysaa maanta adigoo jooga Soomaaliya taasu waa su'aashan maanta markaad soo gashid waxaad ku dhufanaysaa qaybta ku noqotay Bible account ama Bible sign up ama Bible create account inta wad ku dhufanaysaa marka saa Bible account ku dhufatid wuxuu ku keenayaa hankiisa homekiisa ku keenayaa wuxuu ku siinayaa laba qaybood marka kii ka faa'iiday ay soo qabsanaya kaas waan ku leeyahay account-kayga ku isticmaalaya ka faa'iido kuma ku isticmaalaa marka ugu horeysan lahayn waxaan ku dhufanaynaa sign up imika Soomaaliya uu ka shaqeynayaa birigoor kama shaqeyn tirin marka imika loo furay marka sign up baad ku dhufanaysaa sign up markaad ku dhufatid wuxuu ku weydiinayaa laba su'aalood ku weydiinayaa ma shirkad baad u doonaysaa mise waxaad u doonaysaa business haddii aad kaliya doonaysid inaad online-ka wax kaga iibsatid ama lacag ku dirtid share gareenin information-kaaga ayaad online-ka wax ugu diraysaa way Gmail-kaaga tumaal u diraysaa wax kale ma sheegaysid xagga imika marka Mastercard-ka isticmaalaysid gelinaysid magacaaga iyo information-kaaga iyo magacaaga saddexan iyo code-kaaga bangiga gelinaysid wixii oo dhan aad gelinaysid iyo Bible-ka code-kiisa imika ma gelinaysid waxaad gelinaysaa kaliya email-kaaga u sheegaysaa qofka imika saacad ugu soo diray labada shuruudood kala doonaysaa hadaad business aanu doonaysaa hadaad personal aanu doonaysaa marka badan aad business kaliya tahay waxaad dooranaysaa personal account marka next aad tabanaysaa marka next aad tabatid wuxuu ku soo dhigayaa file-kan buu soo dhigayaa file-kan intaanaad qaadan waxaad kali gareynaysaa oo aad dooranaysaa barta ku qorantay America imka qofka America jooga ee Mareykanka jooga waxba ma bedelayo calankaas oo eeganaysaa calanka ku yaala markaad eegatid halkaas soo bedelaysaa qoraalku ma bixinaysa information-kaaga wax kale ma bedelaysa laakiin markaad waddan kale joogto waa inaad barta bedeshaa saas soo kala gareynaysa marka ka soo gudaysid haddii aad joogto Africa wadamadaas uu gal yahay Africa wadamadan buu gal yahay haddii aad joogtid America hagan uu gal yahay haddaad joogtid Asia hagan wadamadan buu gal yahay wadamada halka aan ku jirin ee uu isagu u gal yahay ama uu la diiwaan gelin karo iskama diiwaan gelin karaysa haddana waddanka kale uu jiro marka imika waxaan sameynaynaa waxaan sameeynaa halkan aad ka eegaynaa Soomaaliya waa taasoo ku jira berigoor halkan kuma jiri laakiin imika uu ku soo daray marka imika halkaas ku dhufanaysaa
Soomaaliya marka ku dhufatid halkan information-kaaga waxaa lagaaga baahan yahay oo email-kaaga gmail-kaaga waa inaad gelisaa oo ama password adagna u samaysatid waa inaad halkaa gashataa marka saa ugu dhufatid halkaas waxaad ku qoraysaa gmail-ka doonaysid inaad ku samaysatid kaasaan doonayaa inaan u sameeyo imika Bible account qofka marka lacag kugu soo dirayo amba lacag kugu soo dirayna waxaad u sheegaysaa gmail-kaagaas ma u sheegaysaa marka gmail-kaaga u sheegtid ayuu lacagta kugu soo dirayaa numberkaagana halkaas inaad gelinaysaa numberka marka maadaama calanka soo bedeshay Soomaaliya ka soo dhigtay furaha isaga ku daraya marka inta dambe ayaad qoraysaa oo kaliya ayaad qoraysaa marka hadan number gulaysa geliyo 06 markan geliyo 280361 baan geliyo numberkaas suliska marka halkan magacaygan gelinayaa magacaaga oo si sax ah u gelinaysid ama passport-kaaga kugu qoran ama document-kaaga saxda ah ayaad qoraysaa maadaama waxani account-kaaga yahay oo account bangiga ku leedahay ama bangiga aad ku furanaysid account yahay ma gelin kartid wax mala yani Maxamed baan ku qoray xaggan waxaad ku qoraysaa hal sidoo passport-kaaga ku qoran yahay ayaad ku qoraysaa xaggan password ayaad gelinaysaa password-kaas waa inuu noqdaa strong password si aanay cid kale u helin xogtaada ama lacagtaada aan u bixin marka strong password online kan waa laga soo samaystaa waxaad ka soo samaysan kartaa adigu mid aad aan iloobi karin oo samaysan kartaa marka kaasaan gelinayaa anigu kaasaan gelinayaa marka kaasaan u geliyo kaasaan gelinayaa online kaas soo wada la garanaysaa kabacdina qaybta kalena waa ku copy garanaysaa confirm samaysaa labadii waan copy gareeyaa anigu kabacdi waxa kaliya aad uga baahan marka soo sheekaysatid next kaaga baahan yahay marka next ka sameysay wuxuu ku oranayaa waxa ku soo dirayaa code ku soo dirayaa inaad mobile-kan leedahay tijaabi weeyaan kabacdi wuxuu ku soo dirayaa code kaas uu ku soo dirayo ayaad gelinaysaa halka code-kii ayaan sugayaa imika oo gelinaysaa haddii hore kugu soo diri waayo amba dhowr mir kugu soo diri waayo waxaad ku dhufanaysaa send code again amba mobile-ka baqtisnaa ayaad ku dhufanaysaa marka saa ugu dhufatid uu ku soo dirayaa oka message-kiisa waan maqlaysaa wuu soo diray marka waxaan gelinayaa code-kii ayaan gelinayaa imika code-kii markuu soo diray halkaas aad gelinaysaa 4 wuu soo diray 42319 buu soo diray marka saa automatic ay u gelisay taybkii wax kusanaya haddana wuxuu ku siinayaa information dheeraad oo xageed joogtaa address-kaaga sheeg xageed joogtaa magaalada joogtaa waxaan oo dhan buu ku siinayaa waxaan oo dhan waad gelin karaysaa meesha joogtay inkastoo soo ugu qabsan maayo Soomaaliya meesha alla meesha doonta joog laakiin information-kaaga saxa waa inaad gelisaa hagan dad adilgisid waxaad ku qori karaysaa road 1 baad ku qori kartaa marka halka joogo saasaad ugu wada qori karayaa information-ka geliyo post code-kana waxaad gelinaysaa 0040 ayaad gelinaysaa xilliga dalatayna waad ku qoraysaa iyo date of the birthday waad ku qoraysaa Soomaalidu bishii koowaad iyo bishii koowaad u dhasheen badankoodu saasaad u gelinaysaa marka saa wada gelisid kabacdina waxaad oranaysaa stay saxsan yahay say ku sheegay saa u gelinaysaa kabacdina labadaas asaa u gelisid waxaad ku dhufanaysaa stay login first is jeweler iyo labadaas asaa u kala garanaysaa marka wuxuu ku leeyahay bersiga ayaa qaldan ayuu leeyahay sababtoo ah maad garanaysaa bisha ma jirto bil ka bilaabata 19 marka saas bisha koowaad baan u jeedaa bisha 19 ma jirto marka saa u gelisid wixii kale oo dhawaad sheeganaysaa inuu saxsan yahay marka waxaad ku oranaysaa agri wixii ka khaldan haddii ay wax ka qaldamaan isla markaba uu kugu soo celinaya ma ogolaanaya inuu bartaa dhaafiyo maxaad doonaysaa inaad isticmaashid buu ku leeyahay send money ma lacagta inaad dirto shop with buy mina wax ku iibsatid mise send money in lacagta ku dirshid labadanba waad samayn kartaa imika labadanba waa inaad ku diratid inaad lacag ku dirtid inaad online wax kaga iibsatid iyo inaad saaxiibada lacag ugu dirtid iyo family-gaaga waxaasoo dhan baad samayn kartaa laakiin waxaad oranaysaa get start shop with Bible
account badanaysa aba wax ku iibso amba send money labadaba waa samayn karaysaa kabacdi paybill-kii wuu kuu furayaa hadday shop noqoto wuxuu ku oranayaa waxaad ku xidhaa mastercard-kaagii ku oranaya oo xaggan mastercard-kaagii ka dooro ku oranaya xagga mastercard-kaaga aad isticmaalaysid geli xaggan waxaad gelisaa kaarka numberkiisii mastercard ama American card ama Discovery ama Visa card wixii aad isticmaalaysid halka geli laakiin waxaad ku samayn kartaa xaggan waa skip baad oranaysaa waad ka boodi karaysaa waad ka boodaysaa waxaad ku sideed uga boodaysid waxa weeye maxay dib baad soo furaysaa paybill baad qoraysaa dib baad soo gelinaysaa paybill baad qoraysaa marka account-kiisii unba dib u soo gelaysaa si uu isagu website cusub kugu soo saaro markuu soo saaro ay ku shaqeynaya markaas haddaad mastercard-kaaga ku xidhidna wax dhibaato ma leh waad ku xidhi karaysaa markaad ku xidhid wuxuu kuu samaynayaa in yar buu kaa goosanayaa bangiga aad ku xidhay ayaa lacagta goosanaya xoogaa laakiin markaad ku xidhid waad ka shaqeyn karaysaa kabacdi marka homekii aad saas sumariga ugu dhufatid wuxuu kuu soo dhigayaa waan ku jiraa homeka online-kaygii ka hi maxamed buu kusoo dhigayaa send payment money in minute lacagta minute gudaheed ayaad ugu diri karaysaa daafaha dunidisa marka activity-gaaga wixii aad dirtay iyo wixii ka aqbalay oo dhan halkaasaad ka eegaysaa wixii transaction aad samaysay amba dad lacag u dirtay amba wax ku iibsatay halkaasaad ka eegaysaa wixii aad lacag dirtayna halkaasaad ka eegaysaa send payment-gaas wixii aad dirtay lacag ayaad halkaana ka check garaynaysaa adigoo dirtay account-kaaga aad u dirtay dadka kale ayaad halka ka eegaysaa qaybta kalena wallet-kana waxa weeyaan wajeebadaadii ama qaanadaadii amba khasnadaadii wixii kugu jirin halkaasaad eegaysaa halkaasaad gelinaysaa qofku emailkiisa gelinaysaa sendi baad ku dhufanaysaa marka lacagta kusoo saaraya doonaysa qaybtana waaladkaaga ku xidhaysaa buu leeyahay mastercard-ka ku xidh imika wax mastercard kuma xidhanin laakiin haddaad mastercard haysatid mastercard-kana link baad ku samaysaa bis marka waxbaad ku iibsan kartaa adigoo isticmaalaya paybill-ka sida loo samaysto paybill-ka adigoo jooga Soomaaliyana waa sidaas halkaasaan kusoo gabagabeynaa tutorial-kayga wixii su'aalaad qabtid comment-ga noogu soo bixi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.